بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan kaga hadlo fiidiyahan waxyaabaha waddankeena ka dhacayo oo lagula kacayo gabdhaha Soomaaliyeed oo weliba da'da aad u yar ah. gabdhahaas oo aanu ku tilmaami karo in ay yihiin shuhadaa cinda Allaahi. waxaanu ognahay waxaa ugu horreysay inta aan anigu ogahay gabadhii gaalkacayo lagu muxuu ahaay inta faraxumeeyey haddana la dilay. kadibna waxaanu ognahay oo ku xigtay gabadhii kale ee magaalada Muqdisho sida xun loogu galay inta hodheel korkii inta la geystay oo xumaan lagu sameeyey haddana naxariis la'aan halkaa looga soo tuuray. haddana waxaan maqlaynay gabadhii kaleeto ee magaalada Burco iyadana sidoo kale inta sharafkeedii cirdigeedii meel laga dhacay haddana dil loogu daray. haddana waxaan kaloo maqlaynaa gabar yar oo aan xataa da'weynayn in magaalada Boosaaso ay laba wiil iyaguna saa intay xumaan ugu sameeyeen haddana ay marjiyeen ama ceejiyeen meeshaa ku dileen. marka waxaan ognahay xumaantaas dhacaysaay innagu ab iyo isir midna uma aynan lahayn. waa marka adduunka oo isku furmay ayaa horta dhibaatadaa wata. ummaddan Soomaali ummad muslim ahoo oo sharaf lahoo dhowrsoon bay ahaan jirtay. marka waxyaabaha warbaahinta iyo social media iyo lagu faafinayo iyo xataa dadkii muxuu ahaayey intay waddanka ka qaxeen oo Yurub iyo Ameerika iyo Australia iyo dowladaha deriska xataa tagay ee haddana mar labaad soo laabtay iyagoo xumaanta xambaar iyo ayaa waxaa ka dambeeya. marka anigu dhowr tala ayaan rabaa inaan soo jeediyo. midda ugu horreyso waxaa weeyaan bini aadamka taariikhdiisa waa lagu yaqaanaa. wakhtigii ummadda ugu khayr badan ay jirtay wakhtigii nabigeenna calayhi salaatu wassalaam waxaan ognahay khulafaa u raashidiintii ka dambeysay iyadoon meelba la gaadhin ayaa waxyaabo sidaasoo kale ah yacna in xumaan lagu kaco ayay bilaabatay. waxaanu ognahay khamrada xadda oo islaamku uu u dejiyey waa 40. waxaa dhacday marka in qof iyadoo Ramadaan la joogo xaramka Maka la joogo inuu khamro cabbay. wakhtigii sayidana Cumar ibn al-Khattab xaddii oo 40 ahayd laban laab buu ka dhigay. 80 jeedal ayaa lagu dhuftay ninkaasi. maxaa yeelay isagoo shaygu xaaraam ahaa buu haddana wixii kaleeto islaamka xurmo lahaa oo dhan ayuu burburiyey. waxaa kaloon ognahay oo diinta islaamku ay qabtaa sayidina Cali ibnu Abi Taalib ninkaa xakiimul islaamka ah hadal uu yiri oo dhaxalgal ah ayaa jira oo dadka muslimiinta ah khaasatan dadka madaxda ee mas-uuliyadda ummadda u hayo inay la socdaan loo baahan yahay. sayidina Cali wuxuu yiri isagoo la hadlaya dadkii idaa axdastum ustuxdistum hadalkaasuu yiri oo waxaa weeye haddaad wax dembi ah oo aan la aqoon jirin aad la timaadaan ood keentaan cuquubo u dhiganto yaa idinkana yaa idinku soo rogayaa. taas ayuu yiri. sida aan hadda u soo sheegnay oo sayidina Cumar uu u laban laabay khamrada xaddeeda
sayidina cali sidoo kale waxaa jirta qiso oo ku soo aroortay suuratu saad oo nimanka israa'iiliyiinta la yidhaahdo oo ambiyada meel kaga dhaco qiso israa'iiliyaad la yidhaahdo oo aan waxba ka jirin sheego oo aflagaadeeyo ambiyada marka waad ogtihiin qisadu waxay odhanaysaa inna haadaa akhii lahu 99 nacja waliya nacjatun waaxida marka annaguna hadda halkaa u soconin waxay qisada marka ku soo aroorsanaysaa nebi daawuud nin askartiisii ka mid ah xaaskii uu qabay inuu jeclaaday oo marka ninkii uu u diray dagaal si meelaha loogu soo diro xaaskana uu u guursado sayidina cali wuxuu yidhi qofkaas muxuu ahaayey sidaa yidhaahdo oo qisadaas wariyaayi waxaan ognahay qof muslima qadfo xaddiisu waa 80 wuxuu qofkii qisadaa wariyo nabi buu qadfay boogta qof caadi amuuna qadfin waxaanu ku dhufan doonaa 160 jeedal ayaan xad kaga oogayaa marka horta sidaas ayay shareecadu u socotaa iyadoo sidaa tahay aayad qur'aana oo suuratulmaa'ida ku jirto kulligeen waxaanu ognahay ilaahay inuu yidhi subxaanahu wa tacaala innamaa jazaa'u aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم آيادا والأركيسان قفكي أبحوها إنما جزاء الذين كوي وحا أبالكور أن يحاربون الله ورسوله معايا لي مؤمنين تقول لقبه وحرب دقال إلهي الرسول كسنقو قاضي ويه هو إلهي الرسول كيسا لا دغالمو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا فساد ككوي محوياي قف أو مسكين أو دمر أو ير أو أفري تبنجير تقوي سيدي تبنجير حتى سكندري كبحضو جامعة يأدون هكسانيسو يمكوا أفري تبنجير محوها inta la faaxisho lagu sameeyo haddana qudha laga gooyo bal fasaadka ka weyn ee la samayn lahaa muxuu yahay sidaa daraaddeed baa culimmada sacuudiga aayadda wayascawna fi lardi fasaadan maba aynaan ileen culimmada waxay tiraahdaa waxay ka hadlaysaa dad leedaha buqaad oo muxuu fallaaga ah oo dowlad caadila ku kacay ama dad jidadgooya oo qutaacu turuqa halkaab uma fiirinine wayascawna fi lardi fasaadan ilaan aayad guud weeye xataa isaga oon dilin hadduu qofku uu xoogo gabadha iyo hadduuna xooginba wayascawna fi lardi fasaadan kow in laga siiyo ayay muxuu ahay culimmada sacuudiga ayay muxuu ahay dardaarmeen sidaasaana qof alla qofki intuu guri u dhaco ama ilmo intuu la cararo meelaha ku fara xumeeyo kow baa laga siinayaa marka sidaa daraaddeed waxaa weeye dardaaranka oo aan dardaarmayo ummadda horta waa in la baraarujiyaa midda kaleeto dadka madaxda ah nabad sugid ha ahaadeen bilays ha ahaadeen dadka maxkamadaha jooga ha ahaadeen waxaan inta dembiga naloo sheego kadibna aad baanu ugu mahadnaqaynaa muxuu ahaayey maamulka puntland muxuu ahaayey daldalay kuwii gabadha sidaa yeelay waxaana la yaabay waalidkii ka saddexaad diyo ka aqbalay inuu aqbala ma ahayn diyo adduunyada meeshuu rabu ilaahay ka siinayaa isagana in la raaciyay ahayd marka waxaa weeye kuwa kaleetana dowladda yayna noo aamusine inta dil lagu xukumo kuwaas oo lagu fuliyo weliba oo yusallabu waa in loogu daro waxaa weeye waa in meel goob bannaana ama maxaa meel inta la saaro dadku ay u daawasho doontaan sidaa weeye maxaa yeelay
inta dambe ayaa cabsan doonta. islaamkana dheeldheel ma aha. marka tuuga gacanta hala gooya la leeyahay wuxuu ku soo xukumay nakaalan min allaahi. nakaalka waxaa la yidhaahdaa cuquubada ama muxuu ahaay xadda oo lagu cabsi gelinayo qofkan waxa sameeyey kuwii ka dambeeyey sidiisoo kale si ayna u samaynin. aayaddana sidaa unbay ku soo khatimtayoo waxaa weeyaan khizyun fi dunyaa, waxaa weye ceeb adduunyo iyo cadaab aakhiro ayaa markayaa qofka meesha ka raacaysa. marka sidaa daraaddeed waxaa la doonayaa wax aan la aqoon jirin oo aynan ab iyo isir u lahayn haddii uu waddankeenni uu yimid waa in wax u dhigmo oo ciqaabo waa inay dowladdu kulligeed inta ay khusayso dhan maxaa ummaddan bay yay mas-uul ka yihiin iyo amnigeeda iyo ammaankeeda. amni iyo ammaan wax ka fiican oo adduunyadan korkiisa yaalla ma jiro. marka dadkaasi waa in ay ka qaado tallaabo la yaqaano oo aan la dhihin un ayn halkaa lagu aamusin ee maalihiblaaya la dilayaa qofkii gabadha faraxumeeyey ee haddana muxuu ahay dilay. soo daawadasho doonta geed in la saaro oo la salbiyo dadku ay si ay u daawadaan. taa waa midda kale dowladda waxaa looga baahan yahay dadkan oo bahallada ah ee wuxuushta ah ee hudheellada u farfadhiyo ee intay meelaha markii horena ay carareen marka dambena muxuu ahay waxyaabaha caadada foosha xun haddana waddanka kula soo noqday. nimanka hudheellada leh waa in si fiican loola xisaabtamo. ayi hudheel oo uu ka dhaco waxyaabahaasoo kale nin kale waa inuu mas-uuliyaddiisa uu qaato. marka sidaas ayaan maanta inaan muxuu ahaayey ummaddeena annagu aad uga gubanayno kana xun gabdhaha mustaqbalkooda iyo naftooda muxuu ahaayey lagu ciyaarayo in ayna sii soconin oo dowladda ay gacan bira ku qabato. sidaa ayaan dardaarmi lahaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.